daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aynu waraysi kula yeelanay siyaasiga weyn ee Soomaaliyeed ama taqaanaan mudane Cali Khaliif Galeer booqasho ku yimid magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway. mudane Cali Khaliif kusoo dhawaad shabakada calanka. aad iyo aad baad u mahadsantiin, aad baan ugu faraxsanahay inaan magaaladan iyo dalkan aan imaado. mudane Cali, muxuu yahay safarka aad ku timid magaalada Oslo, muxuuna ku aadan yahay? magaaladan waxaan u imi martiqaad wasaaradda arrimaha dibadda shiraan la lahayn oo shalay aan aragnay. maanta iyo berrina waxaan insha Allah arki doonaa qolyo NGOs oo xagga dhaqaalaha iyo horumarinta la xidhiidha. galabta sabtidana waxaan qaban doonaa shir dadka Soomaaliyeed ee magaaladan Oslo degan shiraan ugu talagalay. mudane, shirkii ugu dambeeyay ee lagu qabtay magaalada taariikhiga ah ee Taleex, wax tafaasiilaad ma naga siin kartaa? shirkaas oo ay isugu yimaadeen dadka beelaha degan Sool, Sanaag iyo Cayn, halkaas ay isugu yimaadeen muddo bilaa shirkaas bil ku dhow uu socday. danta laga lahaana waxay ummaddu inay isu timaado, iswarsato, tashato. muddadaas ay halkaa joogeen markay ka bogteen oo ay tashadeen dad ilaa ha kala tagtageen 2-3 kun baa isugu yimi. haddii ay tashadeenna waxay u arkeen inay lama huraan tahay inay maamul iyagu ay leeyihiin samaystaan, maamulkaasoo ay rabaan inuu uga adeego wixii xagga nabadgelyada iyo horumar ay gobolladaas ay gaari lahaayeen. maamulkaasuna waa ismaamul goboleed kana mida dawladda iyo qaranka Soomaaliya. marka maxaa la isdhihi karaa shirka kadib xiisado isbedel ayaa ka bilowday gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, waliba ay hadda dagaalo culus ka socdaan iyo colaado ka abuurmay. marka shirka kadib colaadaha abuurmay sidee baad u aragtaa? run ahaantii maamulka aanu ka dhisnay ay dadku ka dhisteen magaalada taariikhiga ee Taleex maamul cidna duulimaad ku ah wax dhibana ugu talagalay maaha. dadkaas waxay rabaan aayahooda inay ka tashadaan, xaq bayna u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan. cid khasbi kartaana ma ay jirto. waa ognahay oo arrintaa dad diidani way jiraan, maamul diidan oo si dhaba hadda uga horyimina wuu jiraa oo ka Somaliland. xaq bay u leeyihiin ama maamul ahaadeen ama dad dhulka la wada degaha noqotee ra'yigooda xaq bay u leeyihiin. laakiin arrintan arrin annaka khusaysa weeye. waxaanuna ka badin weynay taladayada in la soo ururiyo maamulkaana saa loo dhiso. waxaan rabnaa xaggayaga inaan aad iyo aad ugu tuuntuunsanno deris wanaag iyo nabad in lagu wada noolaado. dadka aanu deriska nahay aan iyaguna meesha kama guurayaan, anana kama guurayno. dad siyaalo badan wax isugu abaanu nahay. nabad baanu annaka rabnaa gudahayaga inaan ku wada noolaano, deris wanaagna aan ku wada noolaano, ka mid noqonno sidii loo raadin lahaa oo dib loogu dhisi lahaa dawlad Soomaaliyeed, qarankii Soomaaliyeedna dib lugaha loogu isugu taagi lahaa. waxaan rabnaa iyadana nabadda aanu annagu isu rabno, deriskayana u rabno, Soomaaliya oo dhanna u rabno inuu noqdo midaanu geeska Afrika oo dhanna nabad aanu kula wada noolaan karno. oo wax badan baa siyaasadda iska bedelay 20kii sano ee ugu dambeysay. marka waxaan rabnaa marba wixii nagaga habboon ee doorka dadkaasu ay leeyihiin inay si sugan oo firfircooniya uga qayb galaan, ayahooda ka taliyaan, nabadda ay u baahan yihiin ay raadiyaan, deriskoodana ka raadiyaan, Soomaaliyana ay ka mid noqdaan in nabaddu ay wada gaadho, geeska Afrika oo dhan nabaddu ay gaadho. ugu dambeyntii mudane Cali, waxaan ku weydiin lahaa dagaalada ka jira Buhoodle oo waliba maanta qaarkood ay socdaan dhimasho iyo dhaawac dad badan, dagaalada sidii lagu soo afjari lahaa iyo maamulka Somaliland ee ayagana ku baaqay in dagaalada la soo afjaro sidii xal looga gaari lahaa dhibaatada cusboonowday. adiga sidee u aragtaa? bal tafaasiil mar labaad inooga bixi. anigu saan u arkaa waxa weeye dantu waxay ku jirtaa in la wada hadlo, in nabad la wada raadiyo,
dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ku nool ee maamulka Khaatume State of Somalia samaystana nabadda iyaga u baahan iyaga raba inay Somaliland nabad kula noolaadaan dagaaladana waxa ku horeeyay magaalada madaxda aagaas Laascaanood ciidamada Somaliland inay joogaan haddana ciidamo badan oo Somaliland ka socda inay waayadanba la soo kordhoobay magaalada Buuhoodle cid ka faa'iideysa colaad iyo dagaal sokeeye ma ay jirto anagu nabad baanu diyaar u nahay nabadda uu ku dhawaaqay mudane Axmed Maxamed Siilaanyo waa nabad aan ahayn mid u qalanta ummadana ay ku qanacsan tahay Siilaanyo waxa uu ka hadlayaa waa anagoo maamula ama dawladda iyo dad shacbi oo meesha ku nool aan wada hadalno arintaas mid ummadana qabatana maaha mid waaqacaya la socdana maaha anagu waxaan diyaar u nahay haday beelo wada hadlayaan inay beelo wada hadlaan haday noqoto maamuladu inay wada hadlaan maamulka Khaatume State of Somalia iyo Somaliland haday wada hadlayaan anagu taana diyaar baan u nahay beelaha iyo waxgaradka iyo culamaa u diinka ummadda dhulka ku nool haday wada hadlayaan oo la isla raadinayo nabadna diyaar baan u nahay laakiin anoo dawladda oo maamula yaan rabaa inaan la hadlo odayaasha dhaqameedka iyo odayaal anigu aan xulanayo taasu mid soconaysana maaha mid xal keeni kartana maaha halkaasi waxaa ku soo gabagabeynaynaa waraysiga aynu la yeelanay siyaasiga caanka ah ee Soomaaliyeed mudane Cali Khaliif Galeer aad baad u mahadsantihiin daawadayaal mar walba barnaamij toos ah kala socda shabakada caalamiga ee calanka iyo TV-geeda iyadoo idila soo socodsi doonta barnaamij walba ee ka dhaca magaalada Oslo tan iyo barnaamijkan oo kale waxaanu idiga tageynaa sida iyo nabadgelyo oo anigoo ah wariye wiil jallaqsi assalaamu calaykum waraxmatullaahi